نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إلهي سبحانه وتعالى يا مهسكله وريال الله سبحانه وتعالى نوب نعميي نعمة الإسلام نعمة القرآن نعمة الإسلام نبي عليه الصلاة والسلام maalin maalmaha ka mid ah wuxuu soo maray qabri ayuu soo maray asxaabtiisa ayaa la socday qabrigii markuu soo maray ayuu wuxuu ku yidhi asxaabtiisa xabaashan laba nin baa ku jira labada qofna way cadaaban yihiin oo hadda waa la cadaabaya aad bay asxaabtu u argagaxeen wuxuu ku yidhi innahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fi kabiir nimankan waa la cadaabayaa qabriga ku jira oo hadda ayay cadaab ku sugan yihiin wax weyna laguma cadaabaye arrin ay ka tegi kareen oo u fududaa adduunka markay joogeen inay ka tagaan ayaa lagu cadaabayaa amaa axaduhumaa fakaana yamshi binnamiima وأما الآخر فكان لا يستتر من البول ninka koowaad wuxuu ahaa qof warka dadka u kala qaada saasuu ku cadaaban yahay cadaabulqabri buu ku cadaaban yahay waqtigaas nebigu calayhi salaatu wasalaam uu soo dul maray waxaa lagu cadaabayaa qabriga dhexdiisa cadaabulqabri ayaa jira walaalayaal sida ay u jirto naciimulqabri qabrigu naciimna waa leeyahay cadaabna waa leeyahay wuxuu ka warramay tii cadaabta ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam markaas midka kalena wuxuu yidhi kaadida iskama ilaalin jirin ama ha noqoto midda isaga ka soo baxaysa ama ha noqoto mid kaleto oo meelaha ku faniintay inaanu faniinkeeda iyo inay korkiisa iyo jirkiisa iyo dharkiisa soo gaarto najaasadu ayaanu iska dhowri jirin oo iska ilaalin jirin sidaas darteed ayuu ku cadaaban yahay waxa ugu badan oo cadaabulqabriga uu ka yimaadana way tahay kaadida halkaa waxaan ka garannay dadka oo hadalka loo kala qaado ama loo kala geeyo oo hebel inta laga soo qaado la yidhaahdo hebel saasuu lahaa wax uu isaguna ka caroonayo ama isaga dhib gaarsiinaya loo sheego isaguna markaa uu qofkii kale colaad u qaado ama dembi uu qaado qofka arrinkaas samaynaya waxaa la yidhaahdaa namaam ama waxaa la yidhaahdaa qataat waa qofka hadalka qaado wey qofkaas waa cadaaban yahay
qabrigana waa ku cadaaban yahay tii aakhiro oo kalena waa uga dambaysaa aayadaha aan hadda dhegaysanay walaalayaal suuratu alxujuraat ilaahay dadka mu'miniinta ah rag iyo dumarba rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu barayaa edebta maslaxadooda ah wuxuu barayaa sharciga islaamku sida uu yahay wuxuu barayaa qofka muslimka ah waxa looga baahan yahay yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa ilaahay rumeeyeyow rag iyo dumar kii aad tihiinba in jaa'akum hadduu idinla yimaado faasiqun magaciisi lama sheegin midka warka keenay namaamka ah ama hadalka keenay ama warka soo tabiyay ku keenaya faasiqun baa lagu tilmaamay war inuu qaado ma ahayn ba shaqadiisa war inuu aanu hubsan inuu sheegana ma ahayn in jaa'akum faasiqun hadduu idinla yimaado mid ilaahay daacadiisa ka baxay oo amarkiisii diiday binaba'in akhbaar hadduu idin keeno akhbaar hadduu idin keeno maxaa la idinka rabaa fatabayanuu qiraa'o kale fatathabbatuu iska hubiya buu yidhi alla subxaana wa tacaala waa heblaayo oo waa saaxiibtay waa hebel oo waa saaxiibkay oo ninkaasa hadalka ii keenay laga aqbali maayo wuxuu doona ha adee war hadduu qof kale kaaga keenay hebel sidaasu ku lahaa hebel waxaasu kaa sheegay hebel maalin heblaayo saasuu kugu xusay hadalkaa hadduu kuu keeno ama hebel waxaas iyo waxaasuu yidhi hebel waxaas iyo heblaayo waxaas iyo waxaasay samaysay qofka warkaa kuu keenaya horta faasiq baa la yidhaha magaciisu saas wey maxaa dhacay inuu war soo qaado oo adiga kuu keeno ma ahayn loomana dirsan shaqadiisana ma aha waxaan shaqadiisa ahayn buu ku jira hawl aan shaqadiisa ahayn buu haya walidaalika qof la rumaysto ma aha kow waxaa kugu waajiba inaad hubsato waxa uu sheegay adigoon xukun ka gaarin oo go-aan ka gaarin ma saasaa u lahaa hebel heblaaye ma saasay ku kacday ma saasay tiri waa arki doontaa waxaan ku sameeyo haddaan mar dambe la hadlo haddaan mar dambe agteeda tago haddaan mar dambe agteeda maro maya go-aan ha gaari go-aan ha gaari waxa ku dhisin hadalkaas waxba kama jiraan ilaa ad hubsato see ku hubsanaysaa qofkii waxaa lagaaga sheegay haddii ay ku danaynayso isaga weydii war hebelow heblaayo waxaana lagaa sheegay walaal waxaana layga soo kaa sheegay ma jira saas dheh maa qofku walaalkaa muslim wey gaar walaashaa muslimada wey waxay doontaa aabto wixii doonaa idin dhex mara waa inaad weydiiso tiraahdo waxaasaa la sheegaye ma jira hadduu ku yidhaahdo waa jiraan waad kala xaalaysa hadduu ku yidhaahdo ma jirto meeshaad uga tegaysaa warkii qofkaa lagu sheegana been buu noqonaya waa inaad marka haddii ay dani kaa hayso waa inaad sidaa isaga hubiso haddii kale ma aha inaad wax ka soo qaado haddii kale inaad wax ka soo qaado ma aha taas waa qodobka koowaad oo ilaahay subxaana wa tacaala ayadaha nagu faray qodobka labaad wuxuu ilaahay noo sheegaya in haddaad hadal wax ku dhisto aadan hubsan oo war laguu sheegay kutirkuteena ciddii doontaa ha keento warkaa haddaad wax ku dhisto go-aan ku gaarto waad ka nadaamoonaysaa berrito wa tusbixuu calaa maa facaltum naadimiin dad baad ku xadgudbaysaa waxaa laga yaabaa gabadhii walaashaa ahayd inaad nebcaato waxaa laga yaabaa caloosha inaad ugu qaado waxaa laga yaabaa colaad inaad u qaado heblaayo ma maqlays sidaas iyo sidaasay ku tiri waxay tiri heblaayo waxaas iyo waxaasay samaysaa arooska hadday tagto hadday safarto waxaas iyo waxaasay u safraysaa guri hebel way ka gurisaa guri hebel bay tegaysaa waxaas iyo waxaasaa laga sheegay saas iyo saasay ku tiri warkaa lagu keenayo waxba ha ka soo qaadin ilaa aad hubsato wadda aad ku hubsanaysana waddo sharciga waa inay noqotaa qofkii weydiisaa haddii aadan arrinkaas samayn dembi baad ku dhacaysaa waa marka koowaade qofkaa inaad dhegaysatay
beenalaha oo warka kala qaada oo dambiilaha oo faasiq warkiisa inaad qaadatay lamana rabin inaad warkiisa qaadato ilaahay wuxuu ku farayaa inaad warkiisa qaadan bal inaad isaga tiraado ilaahay ka baq qofka walaalkeena ha xusin gabadha walaasheena waxa ka sheegi muslimad weeye waxa ka sheegi inaad tiraado saasay ahayd ariga saddexaad dambi baad ku dhacaysaa qofkii waxa laga yaabaa caradu intay ku qaado hadalkii aad maqashay masaasay ilahay masaasu ilaha inaad tiraahdo oo qofkii aad markaa adiguna amacaydo oo muxuu ahaa iyo isaguba saas u ahay oo iyaduba saasay ahayd waa arki doontaa waxaan ku samayn doono inuu saas markaa aad dembi ku samayso iyadana waxay kugu noqonaysaa arrin xun arrinka afraad waxa weye inaad ka nadaamoto berrito ka qoomamayso arrinkii aad rumaysatay aan waxba ka jirin ilaahay subxaana wa tacaala arrinka shanaad wuxuu noo sheegaya dadka mu'miniinta inay dad walaala ay yihiin inama almu'minuuna ikhwatun fa aslixuu bayna akhawaykum arrinka lixaad ilaahay subxana wa tacala wuxuu noo sheegayaa naxariista ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu siiyaa dadka walaalaha oo iyagu isjecel oo iyagu isxiriirya oo iyagu xumaanta aan isku samayn kuwaas buu ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa siiyaa labada kala caraysan labada kala go-an labada kala tagsan rag iyo dumar waxay yihiinba ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisii way ka xihan tahay wattaqu llaha lacalakum turxamuun buu yidhi ilaahay ka baqa waxaad u dhowdiin inaad markaa laydin naxariisto macnaa waxa weeye haddii aydinaan idinku isxiriirin oo dhexdiina aydinaan islaaxin oo hagaajin naxariista ilaahay heli maysaan sidaas wey adna heli mayso isna heli maayo nabiguna calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi labada isdagaalsan looma dembi dhaafo dembigooda dib baa loo dhigaa maxkamadda ilaahay marka la geeyo dib baa loo dhigaa arrinkooda waxa la yahaa faylkooda dib u dhiga labadaasu ilaahay soo heshiiyaan ilaahay dhexdooda soo islaaxiyaan marka qoomamo iyo naxariista ilaahay subxaanahu wa tacaala kaa fogaata ayaa iyaduna meeshaa taalla ilaahay subxaanahu wa tacaala arrinka toddobaad wuxuuna amrayaa oo naga reebayaa in aynu ku jeesjeesno jees bal heblaaya say u soconaysa arag bal say u labisan tahay arag bal say maaratay xaalkeedu yahay arag laa yaskar qowmu min qowm walaa nisaau min nisaa yaan laysyasin yaan laysku jees yaan laysku qosin yaan wax layska sheegin ayuu leeyahay alla subxana wa tacala qofka aad wax ka sheegayso ilaahay subxaana wa tacala agtiisa inuu kaaga dhow yahay ayaa laga yaaba waxaa ilaahay subxaana wa tacaala sidaa naga reebayaa inaynu isxamanno arrimahaas oo dhan waxay ka dhacaan carabka xubintaa khatarta ah ee ku taalla ilaahay subxaanahu wa tacaala bani aadamka uu siiyey oo nicmo ah oo lagu hadlo oo lagu fahmayo oo lagu garanayo wuxuu doonayo haddii carabka laga gooyo ama laga saaro lama garteen wuxuu sheegaya wuxuu rabana qofkaasu ma caddayn kareen mana hadli kareen ilaahay subxaanahu wa tacaala waa siiyey alam najcal lahu caynayn wa lisaanan wa shafatayn wa hadaynaahu najdayn ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa lisaanka iyo bushumaha ku sameeyey waa nicmo marka inaad ku kibirto ilaahay ku caasido wax ku sheegto dembiya maaha marka sukhriyada ama waxa la yidhaahdo isku jeesjeeska waa in carabka laga ilaaliya markii naftaadu soo dhaqaaqayso waa inaad tala jooji nafay carabkayga u istaag jooji ha ka sheegin qofna wax ceebtayda aniga wax ka sheegtaydaa kugu filan tan naftaada ayaa kugu filan adoo dhan dembi soconayaa tahay adoo dhan ceebo soconaya oo duuduuban baa tahay ceebahaaga ku mashquul ceebaha dadka kale waxaa ka sheegin oo ha ku jees carabka cudurrada ku dhaca ee ummaddan muslimka ilaahay ka reebayo waxaa ka mid ah qodobka 9aad ee dadka isku dirkooda iyo cadaawad in laga dhex abuuro oo warka loo kala qaado warka loo kala qaado waxaa ka mid ah qofka isagoo kaa sii jeeda oo aan ku arkahay inaad ama isha ama carabka ama afka aad wax kaga sheegto oo aad isha u dabto oo u jabiso oo goonka u buurto oo maaragtay afka u kuusto
أضيقوا عينيا ويل لكل همزة لمزة قف قستو قف قبل كوسي جدا كوسو جدا إيش جبيني بالفير سوية بالفير سايتاي والله تهاي والواحد تهاي أرك عربك هي إيشا هي أفكار الله يسقط له أرنكاسنا والله ينقر هاي قف مسلم كا كبرنا مسلمات ده وين كده ورطه عرب كده إن مقعيه حن لا يسويه يا مقعيه حن مقعيه حن رجع دمر كوا إن أنا مقعيه حن سويه ولا تنابزوا بالألقاب بدي عورني بدي قابني بدي دوتريسي بدي ساسة هاي بدي ورشها هاي بدي كذا هاي إن السير هذا معها مقعيه حن وقفكم نعبي الله ويا معها وأهل أن سنين وأهل عاصنما وفاسقنما إلهنا سبحانه وتعالى فسوق بكتل المامي بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وحكم ذا أرمها أرمك تمناذا أقول خطرسا الطعن في الأنساب نسبك أوقفك للضرة هو قل معها نسب متهد وحاسي وحاساتهاي وحاسي وحاسمارتهاي ماشي لقاك كان لما يقع مريركaaga iyo waxaas iyo guriga lagu yaso ama qabiil lagu yaso ama magac kale lagu maartay xumeeyo ma aha iyaduna tacnigaas waa arrin jaahiliyo way arrimihi jaahiliyada oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka muslimka ka soo saaray arrimahan maxaa u sababa arrimahan waxa u sababa waxa weeye iimaankii oo qalbiga ku yaraaday cibaadadii oo yaraatay qofkii salaadiisii iyo quraankiisii iyo cibaadadiisii iyo dhikrigiisii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa yaraaday ka bacdina wuxuu ku jiraa markaa inuu dadka wax ka sheego say ahaayeen ummahatul mu'miniin say ahaay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka tagay Juwayriya radiyallahu anha xaaskiisii way guriga ayuu aroortii ka baxay nabigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo fajrka ka hor fadhidaha salligeeda oo tukanaysa oo cibaadaysanaysa oo Ilaahay xusaysa ayuu ka baxay nabigu calayhi salaam barqadeerkii uu soo noqday guriga ku soo noqday iyadoo kulaatay qarax oo ilaa 10 oo kale masalan ay tahay ayuu soo laabtay wuxuu u yimi mu'miniin iyadoo meeshii uu kaga tagay wali fadhida oo cibaadaysanaysa oo Ilaahay xusaysa istighfar iyo tasbiix iyo tahliil iyo hamdala ayay haysa alhamdulillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah subhanallah al-ali al-azim hasbi allah wa ni'mal wakeel ay la ilaha illa husaysa wa tasbih sanaysa wa istighfar sanaysa halki istighfar ilahi subhanahu wa ta'ala درجات مستوى كركو قاضي جنة درجات كو قاضي هل كي تسبيح ميزانك كوب حلية النبي عليه الصلاة والسلام وحليه الحمد لله تملأ الميزان الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك بكوب حلية كلمة دا كلية الحمد لله قرآن كإن مسمى رد بو إلهي كفر فرطي الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون انت سورة الله إلهي كفرتي سورة بضن
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. إلهي سبحانه وتعالى مهديسا تملأ الميزان، ميزان كيبو حساء أجر حاكو ديدي بقول جر كن جر انت إلهي كو قرته إناد مارتي حمد لله كو عرس وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. عرب كاب مركو صوق هذا يضل تصبيح لكو أرد، حمد لله كو عرب، استغفار كو عرب. عربكم مركا ويستاقي ماشي حميد وكدناحل وحاو سببه الرمهان إنينو وحملنه إنينو وحشاقنه إنينو قفق الدرنه إنينو مقاعيح نسويرنه إنينو نصب عينه إنينو أخبارته ويورر كشاك إنه قادنه ورر كينا نسوقد بالله إنينو ضدك عنه غيبة ويبقى نقمق عن هلب كوضو عنه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه oo ilkaha iyo carabka aynu gelino dhiiga dadka iyo hilibkooda inaynu gelino waxa sabab waa walaalayaal waa iimaanka oo daciifay quraanka oo laga tagay aan akhrinayn qofku wax kale ku mashquulsan yahay marka waa firaaqadaas marka way keentaa iimaanka oo daciifay dhikriga ilaahay oo daciifay hadaa doonayso in carabkaagu ka mashquulo arrimahaas maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa quraanka inaad akhriso waqti u yeelato saacado muayana inaad u yeelato subaxii galabtii habeenkii cadaabul qabriga maxaad kaga badbaadaa suuratu tabaarak habeenkii inaad akhrido baa ka mid ah markaad seexanayso inaad soo weysaysato markaad seexanayso ayatul kursiga inaad akhrido markaad seexanayso inaad subxaanallahi walxamdulillahi wallahu akbar dul wasadun iyo saddex tiraahdo ayaa ka mid ah adkaartuna baray nabigu calayhi salaam. سورة تبارك نادى أخرسه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إلهي سبحانه وتعالى أيام كبرينا إنه نقبل بادية إن الأسباب تقاضته أي لبه وحيالات عرب كاغا وكاغا مشغول أيوه هذا القاضي هذا حن وي. إلهي سبحانه وتعالى إلا حصو ذكر صلى بديو يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا كواسنا وحا إلهي سبحانه وتعالى نو أمر يا سوح يا قلب إنه ذكرك بدنه عرب كاقي إنه كم مشغوله ذكرك إلهي لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ذكرك إلهي سبحانه وتعالى إنه بدسه سعرب كاقو وقم مشغوله تذكر بوحك الشيء قوضا وحاكم ذا يا لها أتكد ويني سؤال كاس هدي التهيدتك كو ابتليسن أما كو امتحان إن إلهي وقطوبت كنتو إلهينا آد بريضو والرب سبحانه وتعالى ويديسته إلهو عرب كيغا غيبدا يا نميمدا يا حماتا يا هذا الشاقة إلهو عرب كيغا كالطهير إنا تراهضو ذكرك هداد بديسو إلهي سبحانه وتعالى وكاد ظهيرينيا الله سبحانه وتعالى وكاهينيا الله سبحانه وتعالى وكالليحينيا قرآن كان جعلاني ساينا دخريدو وحبضان ذكر إلهي إن الوضع جعلاني سامح بدل تلفون كانت ما تودن كنا من ملايسو وما تودن هذا الكات كوضو أو هبل أي وح كشيء قضاء كوضو وحاول وتكون توميسا وأن نسكدينيسا وأن ككاف توميسا هذا إلهي سبحانه وتعالى يكون حفظني إلهي بعد نورتي حدود سباد الأرسي صلاة بعد نورتي ويسدي بعد نورتي قرآن بعد نورتي الله سبحانه وتعالى كل نوريا كل علينا يا احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك احفظ الله إلهي حدودي صداير لالس واجباتك وكفره دادي لالس حرماتك وكاربة تتكعرته إلهي أدينا وكل دوريا وكائل علينا يا حمات وكائل علينا يا الله سبحانه وتعالى مدونا إناد مركع كل عضو ربي سبحانه وتعالى وها كم ذا ولا يا عباداتك إناد بديسو وهبينك سوجيتك آخرنتا لبرك عهن نقطه وترك ضحى صلاة الضحى قرآنك إن أذكرت إذا ذكر هذا كتير وحكم إذا صدقاتك يا عملك صالح إن بديسو أو كم مشغوشو يدنا وحيت وحيالها خيرك هي أرنك عربك كجم مشغولين هي النبي عليه الصلاة والسلام وحلية يا إيه ضمان قاضية يا إيه ضمان قاضية عرب كيسة إيه فرج كيسة إنه إلى عليه وأنا ضمان قاضي جنة أنا ضمان قاضي جنة ما يحفظ لي وما يكفر لي
ومن يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة جنة ضمان قاضية وفي جمان قاضة فاحشة يزنا دينو كفوقادو عرب كي سنة إنو هذا الحون كفوقيه ولا ريال هل قصة سوق هذا النوع إلهي سبحانه وتعالى إنه قشيكي قرآن كريم كه دبعتها أي لا هاي إن دتكو هذا الكسكم مقلا أو إسكت دقيستان أو إسكت قاطان دبك أي لا هاي رب سبحانه وتعالى إنه قشيكي وحنا نقفل أن تصال سوق هذا قصة الإفك والنبي عليه الصلاة والسلام حاس كيسا لقسم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلهنا سبحانه وتعالى سورة النور والرب سبحانه وتعالى كفى فاهي إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إلهي سبحانه وتعالى ليه هدتك ليه من بين أبوك يا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كبين أبورتي طيب إذن كيدي كم إذا بيها هاي كوا أرنكا هوريي يا دنبي سوين قاضية ومنافقين تي هوريسي هاوشاس وجاء فيسي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويري حمان بيسميس فاحشة سميس والعياذ بالله النبي عليه الصلاة والسلام هي جاي فيه قرقي سيبي جاي فيه حاسكي سيبي جاي فيه أرنكاسنا وحا وسوجي وعربكو لكن ماشي وحا كجري منافقين تيجوا باللوجا عدو إليهين عدو إلهي عدو رسول كيس عليه الصلاة والسلام عدو دين الإسلام كنيه لكن ضد مؤمنين هو نفسه وأصحابتي كم إذا الرجل يضمر بلا أيها كود دقمي محي كود دقمين محي كود دقمين هذا الكي سوق اللودي أي قادين هذا الكي قادين هذا الكي عائشة أي وذوذين عائشة رضي الله عنها وحين هذا مركز كشكين في صحيح البخاري دتك كوها لك سمي أرنكي إلا وهلاك ووحنا وهلاك سمو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن وحلا غشيغو والزنا غشيغو والعياذ بالله gabadhii mu'minada ahayd markii arrinka suuqa la soo sheegay ee ninkeedu uu yiri waxba suuqa laga wadwadaa oo Aisha wax laga sheegaya waxa laga rabaa gabar kasta oo mu'minada oo war loo keenay sidaas oo kale inay tiraa waxay ku tiri Muslim ninkeedu waxay ku tiri war hebelow anigu xaaskaagiya inaan meel xun aaday oo niman kale aaday oo aan sinaystay ma u qaadan lahayd markaasuu yiri xaasha عائشة أنا جاي في عم بيت عائشة أنا جوا إيجا شرف بنتها وأنا إيجا في عنت وأنا إيجا فضل بنتها سأرنك لو قلت مي هذه قصة وحصل كلام سماي الله البيت ما حاشا دنيك اللي قلت شيء جاي وحيد لك كافضل بنت أو كافي عن صفوان ابن معطل
saasay dadka mu'miniinta arrinkoodu ahaa هاهي لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا وحاسنا شيخنا معها سبحانك هذا بهتان عظيم قف مسلم وحركه وحلقة شيء ولا شاء أما ولا الكا هذا المغشوين أساس ترى مركا إلهي سبحانه وتعالى وحيري كوا دنبي عليهم عذاب تودي إليهن لكن ذاتك المؤمنين تهايو قدك مي أي إلهي وحليه ورمركات مغشين ووركا ليدين شيء maxaad u hubsan weydeen maxaad u dhihi weydeen maxaad u dhihi weydeen war qofkaas waa qof mu'min ah ama gabadhaas oo gabar mu'minada waxaas kama suurtoobaan maxaad u dhihi weydeen u difaaci weyseen midda kale maxaad buu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa beenta sheegay markhaati afar ah maxay u keeni waayeen hadday run sheegayaan haddayan markhaati afar la imaan been weeye waxay sheegayaan oo ay ku hadlayaan إلهي سبحانه وتعالى وحو هدانا سيوي شركدي وحو يلي هدايا أهان الله فضلك إلهي عذاب حنون بضن بالله ينكون بفضل الله دمانتين مركا وحا لغا يابا قف يسوي قاضي أو ور قاضي أو حمان شاقي مقالة صوردن إن لو عذاب ضدك وردن إن لو عذاب وقارو جرهدان وقارو حنون صدا وقارو بابعان وقارو دبات وضا وقارو دنتان وقارو حرمان محاد عي وفي مسلمان نقول المية ماشاس لمن الدفاعين gabar muslimada ayaa lagu caayay lamana difaacin waxna lagama asturin waxna lagama difaacin arrinkeeda iyo cirdigeeda lama oran war waxaasad sheegaysaan ka daay war waxaas waa been war waxa markhaati u keena war waxa Allah hubiyo lama dhihin hal iska daay marka cadaabtii inagii bay soo gaartay ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم arrinkaad isku ballaariseen waad wax ka sheegteen waa laydinku cadaabi lahaa buu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii ayan ahaan lahayn fadliga ilaahay haddayan ahaan lahayn dhulkaa laydinla goyn laha waa laydinla rogi lahaa hadallada aad wadaan iyo waxa aad carabka ku ballaariseen markaasuu ilaahay subxana wa tacaala wuxuu yidhi dadku saanay wuxuu hubsan id talaqawnahu bialsinatikum carabkaad hadalka ku qaadanaysaan caqli kuma fekeraysaan oo qalbigiina ma soo marayo oo maskaxdiina ma soo marayso war heblaay oo muslimada war hebel oo muslima waxaasoo laga sheegay see ku dhici kara ismaydinaan oran ismaydinaan weydiin yaa markhaatiya yaa hubiyey yaa joogay waxba la isma weydiin marka maxaad hubin weyseen ilaahay subxana wa taala wuxuu leeyahay carabkaad ku qaadaysaa carabkaa isugu dhiibaysaa hadalkii baad maqashay qof kalaad usii dhiibaysaa qof kalaa kusii dhiibaysaa qof kalaa usii sheeg ma maqashay waxaasaa la yidhi saasaa la sheegay saasaa lagu keenay hebel baa saasi hebel ayaa saas tiri saasaa lagu wadayaa ilaa magaaladii dhan ay la holocdo oo la gubato ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu goodiyey dadka cadaab inay kusoo degto haddii aanay waxaa ka waantoobin oo carabkooda ayan ilaashan oo iimaankooda iyo aakhiradooda iyo qabrigooda qabriba gelayaane aanay ilaashan marka walaalayaal waxaan leenahay waa la dhimanayaa qabri baana la gelayaa gabar walba nin walba wiil walba gabar walba qabri bay gelaysaa keligeed habeenka ugu horeysa qabriga bal hadda xusuuso maxaad ku jawaabi doontaa dadkaad carabka sidii seeftii ugu goysay maxaad oran doontaa ilaahay hadduu ku weydiiyo maxaad markhaati u keeni doontaa yaa kuu dirsaday haddii lagu yidhaahdo maxaad ku jawaabi doontaa shaqadaada miyay ahayd haddii lagu yidhahdo maxaad oran doontaa jawaabtaadu maxay noqonaysaa xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabu inta aydinaan laydin xisaabin ayaa la isxisaabin hadda isxisaabi oo hadda dheh haddii lagu weydiiyo maxaad oran doontaa maxaad ku jawaabi doontaa waltandur nafsu maa qadamat ligadin wattaqu llah maalinta qiyaamo intaydinaan laydin keenin xisaabta ee laydin xisaabin ee malaa'igtu hareeraha iska kiin taagin ayaa loo baahan yahay walaalayaal in laga faa'iidaysto fursadda la haysto in laga faa'iidaysto nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi mucaad sakilatka ummuka ya mucaad wahal yakubu nnaasa fi nnaari calaa wujuuhihim aw calaa manaakhirihim ilaa xasaa'idu alsinatihim wuxuu ku yidhi kufa calayka haada carabkaaga ilaasho dadka naarta ma waxaa ku guray wax kale aan carabka ahayn gabadhii muslimadda ahayd ee tukanaysay ee soomaysay ee salaadaysay cadaabta waxay la gashay deriskeeda oo carabkeeda ka maara waayey oo ka magangeli waayey oo ka nabadgeli waayey
ayay la gashay cadaabta iyadoo soomaysay oo salaadaysay marka soomayso haddaad soomayso oo salaadayso oo cibaadaysanayso waa arrin wanaagsan laakiin arrinkaas kuma banaynayo dadka inaad carabka ku balaarisee carabkaaga ilaasho muslim yahow waa bahal weeyu ku cunin iska jir iska ilaali hay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu iimaankeena noo xifdiyo ilaahay qur-aanka nagu xifdiyo carabkeena inuu ilaahay noo xifdiyo iimaanka inuu ilaahay noo xifdiyo islaamka inuu ilaahay noo xifdiyo khaatimo wanaagsan inuu ilaahay noogu khatimo alle subxaanahu wa tacaala qabrigeena inuu nuuriyo qubuurta ilaahay subxana wa tacaala inuu nagu cadaabin cadaabulqabriga iyo fitnadiisa inuu ilaahay naga hayo ilaahay subxana wa tacaala cadaabtiisa inuu naga hayo alle subxaana wa tacaala cadaabulqabriga inuu naga kor yeelo cadaabunaarkana ilaahay naga kor yeelo baynana wa baynaha xijaab inuu ilaahay ka yeelo alle subxaana wa tacaala jannadiisa inuu noogu nicmeeyo dembigeena dembiga waalinteena inuu dhaafo qur-aanka inuu rabiica quluubina ilaahay ka dhigo in qalbigeena ku raaxaysto inuu ilaahay ka dhigo dhageena iyo indheheena kay ku raaxaystaan inuu ilaahay ka dhigo kuway tadabburo akhriya inuu ilaahay naga dhigo daakiriina allaha kaiiran wadaakiraat inuu ilaahay naga dhigo asaabiriina wasaabiraat inuu ilaahay naga dhigo khaashiciina walkhaashicaat inuu ilaahay naga dhigo الصادقين والصادقات إنه إلهي نقدقه المتصدقين والمتصدقات إنه إلهي نقدقه القانتين والقانتات إنه إلهي سبحانه وتعالى نقدقه الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إنه إلهي نقدقه حافظين فروجهم والحافظات إنه إلهي سبحانه وتعالى نقدقه إلهي سبحانه وتعالى المسلمين والمسلمات إنه إلهي نقدقه مؤمنين ومؤمنات إنه إلهي نقدقه وهو سبها مركز إنه إلهي نقدقه الله سبحانه وتعالى قرآن كأنه قريه إنك وحفظ إلهي كدقه الله سبحانه وتعالى كودك يستوى آخريه وكتدبر إنه إلهي نقدقه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين